haweenkana kolley wayna maqlayaan iyagana qisad baan ugu daraya haweeney xabashiyada u madoobeyd oo waxay lahayd xanuunkan la yidhahdo suuxdin waa taqaanaan waa qalal waa xanuunka qofku u dhaco ee miyirkiisuna uu daboolmo tago miyirkiisu haweeneydaasaa nabigeena u timid sal alla alay wasalam yaa rasuul allah inii usrac jidadka ayaa ku dhacaa bay tiri jidadka maraduna markaasay iga beelahantaa ilaahay ii weydii bay ku tiri caafimaad ilaahay caafimaad ii weydiiyey ma ahayn xanuunku madax wareer yar xumad yar waa suuxdin miyirka dhan baa qofka daboolmayuu tegaya maankiisii baa bedelmayba rugmanayaba markaa buu nabigu sidaa eego wuxuu ku yidhi haddaad doonto khiyaar buu nabigu siiyey khiyaar cajiiba wuxuu yihi haddaad u adkaysato ood sabirtid jannaad heli haddaad doonto inaan ilaahay kuu baryo caafimaadku siiyana haddaan waa kuu ducayn markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkuu sidaa ku yidhi ayay tiri yaa rasuul allah bal waan isku noqonay iyarkaadii way soo noqotay markaa bay tiri yaa rasuul allah xanuunka iska daa bay tiri xanuunka halkiisa hay joogo iska dhaaf isaga xanuunka laakiin midun aniga iiga ducee meeshaan doono han iskaga dhacee yaanan maradu iga baylahmin oo cawradeeda la arkin bay ku tidhi haweenkoogiiyo raggoogiisa isku aragti maaha innaka haweenkeeni raggeenu isku aragti maaha maanta waa kala duwannaha lanna ummaddaasi meel keliya biyaha ka wada cabeen mashrab keliya biyaha ka wada cabeen mucallim keliya wada tarbiyadeeyey xanuunka iska daa bay ku tiri meeshiisa ha joogo ha iska dhacdhaco haddaan jannaba ku helaya sidaa ku dhaaf isaga laakiin meeshaan doona han iskaga dhacee yaan cawradeyda la arki nabi allow maradeyda iga beelahmin iyadoo miyirkaygi uu daboolsoomay waliba qofkaasi hadduu waa markaan salaadba qofka lagu lahayn baa la yidhi marka uu soo kaco unbaa qofkaasi inuu tukado shareecaddu ay dhigaysaa wixii markaa iyada jirhkayga soo gaara dembi ma qabta iyadu innakana maanta gabdhaheenna qaarkood ayagoo maankoogii iyo caqligoogii uu soo jeedo uu shaqaynayo ayaa laga yaabaa dhar xun intay xidhatay inay ragga hormartay banaanka marto ama aabbihii baad arkaysaa inantiisa kala raalliya dhar xun inay xidhato isaguna masjidka kugula tukan hadduu doono safka hore dhashiisiina dhinacay socdaan iyo haadkay marayaan warba uma hayaba iyadoo miyirkeegii uu daboolmay oo suuxday oo jidka taallo marada ka baylahmaysa iyo aragga cawradeeda raggu ay arkayaan ayay ka baqaysaa ee ka xishoonaysaa markaasay nabiga ku leedahay ii ducee yaa rasuul allah in maradu iga dhaqaaqin maradaydu bas uu duceeyey nabigu sal alla alay slam meel kastay ku dhici jirtay maraduna kama qaadma jirin baa la yidhi ibnu cabaas radia allahu canhuma ilaahay raalliha ka noqday cabdillaahi ibnu cabaase waa khilaafadii cuhmaan binu cafaan buu cabdillaahi soo gaadhay isagoo indhabeeloo da-weynaaday bal weliba uu ka dambeeyaan u malaynayaa ayaa waxaa dhacday inuu taabiciinta ku yidhaahdo cataa ibnu abi rabax oo ardaygiisa ahaa haweeney ahlujanna ma ku tusaa islaantaa madow halkaa duqdaa madow maad arkaysa ha waa ahluljanna say jannada ku mutaystana uu sheegay markaas marka adduunka dusheeda walaalayaal dhibaatada inagu soo gaadha waan u adkaysanaynaa faqriga waan u adkaysanaynaa nicmadda ilaahayna siiyana ilahay baan ugu mahadinaynaa muminku labadaa midun waa inuu ka dhexeeyaa bayna shaakirin wa saabirin hadduu qani yahoo loo nicmeeyeyna waa inuu noqda qof shaakira shaakirka waa maxay waa qofka sida ilaahay rabo u noolaade u socdo weeyaan hadduu faqiir noqdo faqri ilaahay kuu qadaraa ama imtixaan iyo ikhtibaar ilaahay kugu rida oo qof baa kaa xanuunsan adigii baa jirin ilmihii baa wax kaasi noqdeen waa la sabraayo waa la adkaystaa un muminku ma ashkatoodo haddaad aragto qof muslimo oo shahaadanaya oo balaayo isaga ku dhacda dadka mar walba uga sheekaynaya waa qof ilaahay ka cabanaya baa la yihi wuxuu leeyahay nin ilaahay baa dhibta igu haya ayaa iga qabto halkay ku dacweeyaan muminku ma ashkatoodo
shakwada mu'minku ma leh mu'minku sabirku leeyahay hadduu qani yahayna waa shaakir hadduu caafimaad la siiyey waa ku shukriyaa caafimaadka haddii arsaaqada loo waasiciyo arsaaqada uu ku shukriyaa haddii nolosha lagu yar cidhiidhiyo lagu adkeeyeyna waa la sabra laanna nolosha adduunka ilaahay isagaa sidaa ugu talagalay dadku inay kala sarreeyaan marka adiga dabaqada ilaahay uu kugu dhex abuuray diinta uu ku dhex qaada bas ilaahay uu ku raaligeli madax buu kaa dhigay madaxnimadaadu waa mas-uuliyad ilaahay ku saaray ajarna waad ka helaysaayo haddaad dadaashado ummadda aad talada lagugu dhiibay walow qoyskaagaba ha noqdo tolkaaba ha noqdaan degmaba ha laguu dhiibay ama tuulaba ha laguu dhiibay haddaad cadaaladda ilaaliso cadaalad samaysid wixii wanaagana aad ula dadaashid dadka haddaad asiibtana 2 ajar baad leedahay haddaad geftana 1 ajar baa lagu qorayaa baa lagu leeyahay